xaaladda uu maanta ku jiro beelweynta Jidwaaq ee degan dowlad deegaanka Soomaalida dhibaatadaasoo muddo soo jiitamaysay baa nagu kaliftay inaanu mowqif cad ka qaadanno kama dambayntii lagamana laabanayo dibna loogama noqonayo go'aanka isaga ah Jidwaaq dhibta ay ku jirtay mid laga sheekayn kara maaha intee in leeg bay ku jirtay waa 7 sano ee la soo dhaafay ha ugu darnaato dhibaatadana haysta meel allaala meeshii bannaan in loogu yeedho nin dibadda jooga la yidhaah soo carar dhul baa lagu hayaa magacaygu maxamed cumar maxamed shidniya waxaan halkan aad iyo aad ugu cambaaraynayaa afarta tuug ee isku dayey inay beesha qaadeeyaan kow cumar dool waa nin shaqaysta waa nin ay maanta ula gashay inuu magaca beesheeda uu ku shaqeeyo taasina uma suurtagelayso laba maxamed bede waa nin danaysta waa nin marba weji yeesha waa nin shalay maxaa la yidhahday dowlad deegaanka ammaanayey maantana afkii uu shalay ku caayay afkii uu ku ammaanayey buu maantana ku caayaya waa call box wax lagu hirto weeyaan kolba qofkii uu la joogo isagu lama matala isaguna waa nin lacagii deeqaha masaajidada iyo diimaha loogu talagalay isna dhacay weeyaan tuug weeyaan mar la saddexaad tuug weeyaan waa nin maxaa la yidhahdaa xataa qofka weyn aan ka dhishoonin islaamaa dilcooda furanaya khadar jigre waa nin kolba halkii ay dantu ugu jirto ku shaqeeyey weeyaan tusaale ahaan halkan buu yimiday baanku lacag qaatay 28 milyan kadib hotel buu furay lacagtii baanku uu sidii ku dhacay waxaa la yidhahdaa marka isna nama matalo tuug weeyaan khaayina dabada ka shanbadaysan caruuraha iyo yunanagal goyn islaamaha camal kale maayo waxaan ka mid ahay beesha Jidwaaq waan ka tirsanahay marka waxaan halkan aad uga cambaaraynayaa afarta tuug ee qurbaha isku horsatay ee la shir baan u qabanaynaa taageeraysa wanaagta iyo jawhar taageeraya oo ka mid yahay maxamed bade khadar jigre cumar dool iyo maxamuud dayib haddaan ku horeeyo maxamuud dayib muddo hadda laga joogo ilaa 2 sano ayuu deegaankii isagoo qandaraaslaadiisa oo danihiisa khaaska ah u socda isla markaana qandaraaskii markii uu shuruudii loogu talagalay iyo shuruudii buuxin waayey ayuu halkan ka dhumay oo isagoo calaysan uu ka tegey hadda ka hor ku sameeyey oo kale waxaa jiri jirtay hay'adoo la yidhaahdo magacayga Mustafa Maxamed Dheere anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada beesha Jidwaaq ayaa waxaan halkan ka cambaaraynayaa dadka sheeganaya magaca beesha ee qaba fikrada qaldan iyo aragtida ceeriyoon kuwaasi oo ay ka dambeeyaan cadow ama dad shisheeye ah oo dhibaato ku ah dadkeena markaa waxaan leeyahay ninka sida tusaale ninka la yidhaahdo magaciisa khadar jigre khadar waa nin dambiile ah bankigu deyn ku leeyahay lacago badan ka dhacay dalka mar walbana raba fikirkiisa iyo aragtida qaldan inuu bulshada gaarsiiyo taasina mid suurtagala maaha Jidwaaq maaha mid dibadda looga banaan baxo Jidwaaq waa dad tiro badan waa dad leh salaadiyiin suldaano ugaasi iyo garaado dad la weeyaan waxa ayna bulshadu qabin in markastoo laga been sheega waa nasiib darro waxa weeyaan dadkaas dad aan anaga nabadgelin oo ku tiirsan dad ka xun nolosha iyo nabadda bulshada iyo dadka Jidwaaq iyo dowladdeegaanku ay ku naalooneen ama ay maanta ku jiraan waa dad ka xun weyn wax dhibaato oo anagu qabnaa ma jirto dadkaasi waa dad ay adeegsanayaan dad shisheeya oo fikirro qaldan iyo aragtiyo qaba haddaan u noqdo xagga maxamed bade waxa weeye isaga la yaab ma laha waxa haysaa carruurta guriga ka kacday weyn oo waa markuu dalka yimid doonay inuu mashaariic qaato taasina
mashruucan u maanta lagu siin ama beriba lagu siin ama sindaro aan ka xumahay inuu taas magaca beesha iyo magaca dadka inuu ku jiro haddaan kasii gudbo waxaan u gudbayaa cumar dool beesha waxay leedahay garaad inuu yani isagoo garaadnimo ka kacday inuu wuxuu doonaba uu ku hadlo ama waxaan suurtagalayn anaga ka shisheeye iyo fikro qaldan inuu ku hadlaan taana kama yeelin beesha annagaa u joogna jijigaan joognaa wax dhibaato qabnaa ma jirto dadka iyo dalkayguba waa nabad annaga iyo xukuumaddeedu waxaan nahay uliya diirkeed wax dhibaato ahoon tabeyn habeeraatee ma jirto marka waxaan rabnaa dadkaas cid kasta oo ag joogta ama goobashaan kor inay la halgamaan waxaan iyagana si gaara ugu sheegayna haddii ay ka noqon bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdiwaas axmed maxamuud ku nool magaalada Jigjiga waxaana kamid ahay dhalinyarta jidwaaq ee magaalada Jigjiga ku nool run ahaantii waxaan xaggan aad iyo aad ugu xumaanay shakhsiyaadka sheeganaya ee magacayga ku qaraabsanaya kuwaasoo ah sida Cumar Doob Maxamed Bade khadar jifte nimankaasoo ah niman shaar madow xiran oo dadka inay cunaan ugu talagalay marka waxaa ceeb ah qof jeel wax ku cunay inuu ku xaaro ayaa ceeb ah nimankaas marka waa niman mashaqaysayaal oo calooshoda u shaqaysayaal marka alaala marka ay xaal ka waayeen wadankii ayay damceen inay burburanto iyo waxyaala aan qaadan karin inay la yimaadaan marka taas waxay ku cadeynaysaa inay waxbana ahayn takale hadii aan xaqiiqda ka hadalno deegaanka xor baan ku noolnahay aan ku laanoona haddii ay dhibaato jirto dee waa naga muuqataa hadday horumar jirto waa naga muuqataa marka wax horumarkiiyo dhibaatadiiyo macnaha ka jira aan xaggan aan ka sheegayna ma jirto sababtoo ah wax walba ilaahay noo fududeeyay iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya iyo mas'uuliyiinteeda takale haddii aan u dhaadhaco shakhsiyaadka damacsan inay habaabiyaan dhalinyarta ku nool joogta waxaa ka mid ah Cumar Doob oo ah nin mashaqaysta special gaar ahaan kama warhayo reerkiisa mana 40 sano ka badan ka maqan wadanka deegaanka hase yeeshee hal goojo ama boos uu ku leeyahay ma jirto haddaan soo qaato khadar jirtay sidoo kale ninkaas dee muslim lama tilmaami karayo waa nin dowladda Itoobiya ay raadinayso gaar ahaan bankiga international uu raadinayo kaasoo lacag deyn uu ka qaatay inta lacag dhan 20 milyan oo bira lacagta Itoobiya ninkana waa la raadinaya maxkamadda waan codsanaynaa inuu soo dhaweeyaan ninka kale Maxamed Bade sidoo waa nin caadistay inuu marxabaabiyo beesha uu matalayo uu macnaha uu sheeganayo kaasoo ah nin tug dhalaya lamana matalo haddii aan nahay dhalinyarta jidwaaq waan macbaareynayna waanan soo qaban doonaa sharcigan horkeena ninka kale ah Maxamuud Dayib isagoo waa nin masaajidkii lacag loo ururinayay dhaafi waaye nimankaas bulsho wax u qaban kareen iyo hay'ad jidda ay dawladdu ugu soo deeqay in ay wax ugu qabtaan sida ceelasha ugu qodaan oo kale ninkaas wax u qaban kar waaye lacagihiina ku tahriibay nin weyn oo tahriibay waa ceeb marka waa tahriibiyaasha sanadka 2018 ka nimankan marka waxay doonayaan dhalinyarta nabadda ku nool ee wax baratay intaasoo dhalinyaro jidwaaq waa jirta PhD ka u yar baa master oo hadda haysta marka wax alaala hadda nabad mooyaane horumar mooyaane wax meel kale loo jeesanay ma jirto haddii aan soo noqdo Maxamed Bade isagoo ninkaas waa nin danayska shakhsi gooni ah because deegaankii uu ka soo jeeday ama beeshii uu ka soo jeeday ayuu khiyaamayba ceelal loo qodayay oo loo baahnaa in loo qodo ayuu damcay inuu jeebka ku shubto deen markii la fashilay ayuu soo baxsaday uuna waxaan jiro oo joogin ka hadlay marka nimanka noocaas oo kale waxaan faraynaa farin in ay ka waantoogaan haddii ay ka waantoogaan gacan libaax bay ku dhaci doonaan magacaygu waxa weeyaan Daahir Axmed Yuusuf waxaan ka tirsanahay dhalinyarada beesha jidwaaq waxaan runtii aan u soo jeedinayaa cambaarayn xoog leh 40 nin ku shaqaysanaya magaca beesha jidwaaq 40 nin oo meelo kala duwan hadda socdaal ku tagay sida maxaan dhahay Sweden London haddana raba inay tagaan Minnesota markaa saddexdaan nin waxaan sheegaynaa ama halkan ka cadeynaynaa haddaan nahay dhalinyarta beesha jidwaaq inayna matelin ayna ku shaqaysan karin magacayaga saddexdan nin haddii aan in yar taariikhdooda oo faahfaahsan aan ka sheekayno waxa weeyaan tusaale ahaan khadar jigroo kale wuxuu ku lahaa
hoteel weyn halkan hoteelkaas uu ku dhisay deyn uu ka qaatay bangiga dhexe ee Ethiopia deynta kadib ayaa waxaa lagu soo dalacay in deyntii iska bixiyo oo waxaa lagu soo dejiyey maxaa idhaha in uu hoteelkiisu iib yahay ama maxaa idhaha jarataaga kadib wuxuu sameeyey intuu si hoos u iibiyey ayuu maxaa idhaha lacagtii Maraykan ku shubtay xisaabtaasi markay ku soo baxday shuruucdii waddanka iyo maad aragtay waxyaabihii xeerarkii u dejisnaa bangiga markuu fulin waayey ayuu ka cararay midda kale waxaa jirta inuu qolooyin kaniisada oo maad aragtay charity ama waxyaabo uu kasoo ururin jiray uu ku dari jiray midda kale waxaa jirta oo weliba shaambada maad aragtay dhinaca kaniisadu ay ku yaalaan ninka kale ee la yidhaahdo oo maxaa la yidhaha isagana ina bere ama maxamed bere ninkaas isagu danooyin maad aragtay interesti ama waxyaaba uu maad aragtay deegaanka usoo doontay ayuu ka waayey sababahaas ayaa ku kalifay inuka maad aragtay inuu abaabul sameeyo isagoo interesti lafihiisa u raadin ayuu kuleeyahy waxaan raadinayaa been maad aragtay magaceed ama been magaceed ayaan xuquuq raadinaya xuquuqa ku ka raadiyay interesti uu waddanka ka waayey ayuu dib uga noqday marka ninka kale isna la yidhaahdo cumar dool xirsi waxa weeyaan dadyogu maad aragtay nolosha ka dhacay ee maad aragtay la yidhaahdo bila-adreyska maad aragtay waxyaabo maad aragtay waddankii ama shaqadiisii ama waxyaabihii intuu la qabsan waayey howlahan kale afmiishaarnimada iyo maad aragtay guddiyada iyo waxyaabahan iyo magacuuna lahayn oo garaadnimo ah ku shaqaysanaya garaadkii waa kan nala joogantay garaad kulmiye markaa sabab uu noo mateli karaa ama uu yidhaha garaad baan ahay ma jirto isaguna waa dadyaro maaragtay nolosha ka dhaca midda kale 40 sano ayaa ugu dambeysay waddanka wax uu war uu ka hayo ama waxyaabo horumar uu deegaanka ka hayo hal mar uu yimid halkaa marna tigirkaa loo sii ururiyey ama laga bixiyeyba ninka kale isna la yidhaahdo maad aragtay maxamuud dayib isaguna waddanka uu joogi jiray waa nimankii iman jiray hay-ad waxaa jirtay Jigjiga Indigenous Development Association la yidhaah ama jiida la yidhaah hay-addaas waxaa maaraye ka ahaan jiray bedel kadib isagoo boordhigii ku jira ama hay-adda maad aragtay guddigeygii kamida ayay ka bedeleen nin kale u magacaabeen xoolaheedii iyo dhammaan iyagaa shubtay waxaa kaloo jira isaguna nin kale oo la yidhaahdo caddaynaya haddaanu nahay dhalinyarta jidwa inayna nimankaasi namateliin oo tuug iyaga iskood u qaraabsanaya ay yihiin oo dhalinyartu markasta horumarka deegaanka u taagan tahay waanaan la halgami doonaa maad aragtay xuquuqdayada iyo maad aragtay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha cabdi maxamed goob waxaan ka mid ahay dhalinyarta beesha jidwaab waxaan xaggan ambaareyn uga jeedinayaa nimanka tuugta ah ee magaca jidwaab ku ganacsanaya ayna matelin aan xakamin nimankaasoo kale ah kow waa cumar dool xuseen laba waa maxamed bede saddex waa khadar jikre haddaan saddexda faahfaahiyo cumar dool muddada uu dhulka ka tegay iyo garashada uu dadka u leeyahay aad bay u yartahay waxa weeyaan beelaadiisii kalena waa bud oo drop out dalka maraykanka lagu yidhahdo drop out wey waxa weeyaan qofku hadduu yahay qof isaga laftigiisu lafihiisa ku filan ayuu ummadna mateli karaa cumarda waa adeerkay aad baan u aqaanaa fikirkan uu watana waa fikir ay nabadii ka dambeeyaan haddii uu si dhaqsaa ugala bixi waayo faraha waxaa ka soo gaara cidna yuu wax ka siin laba waa maxamed bede waxa weeyaan qof isagu lafihiisa danaysta oo hunguri uun ay ka kacday dhibkiisa iyo waxaa hadda tallaabada wax ka sheegaya aan ixtiraamiyo qofku kolkay dadkooga ixtiraamaan ama mas-uuliyiintooda dhaqan beeleedka ay ixtiraamaan ama ay waxyiinbay ummad wax u sheegi karaan niman aan dhaqan ingiriisiya dhaqan ay haystaan toona aanaan garanayno waxay ka xanaaqaan xanaaq iyo hunguri waxay ka xanaaqaan intay dad kula kacaan waxaa sameynaya war nama matashaan kastaxaab bay noqotay khadar jikre isaga
dalka lagu soo gali karo oo baankiyada lacagihii ka dhacay ayaa ku dhan waxaan u dheer khadar waxa weeyaan qof aan mas-uuliyad ama diin islaam laguba tilmaami karo tootali ma aha waryaada noo mateli kartaan jidwaaq ma tihiin xitaa dhaqaniyan baynaad haynba ma aha dad ahaan dhaqan ahaan baynaad hayn hormeel la soo istaago jidwaaq baan sheegane waa jidwaaq dadka mateli kara waa dad jidwaaq dhammaystiran oo is-og meeshay joogaan waxaan ka sheekeynaysinaa meel u yaalla ma garanayno annagaa dhulkii joogna annagaa dhex joognayna weydiye maanta wax naga maqan oo noqon karo waxbaa naga maqan haba yaraatay ma jirto hunguriga weeyaan bay waxa intaan arkay aan waxaa si aad u leedihin maxay baan sheegaynaa war waxaad sheegin kartiin ma jirtee bal horta idinku dad dhulma noqda oo caadi guryo ma leedin horta ma garan karo iyo laba goobood iyo guryo leedin caadi ma garan karo marka waxay nama matishaan